بسم الله الرحمن الرحيم داود يا dhageystayaal meel walba oo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan halkani waa televisionka Mandori TV oo saaxada saxaafada ku soo biiray shanta qaaradood ee caalamka meel walba aad ku nooshiin daawadayaal maanta waxaanu idin haynaa ma arkaysaa barnaamij la magac baxay maxay kula muuqataa oo aan ku wareysanayno aqoonyahanada siyaasiyiinta garaadada reer koonfur galbeed ee Soomaaliya ee qurba joogta ah kuwaas oo aan ku weydiinayno sida ay u arkaan doorashada la filayo dhawaan inay ka dhacdo koonfur galbeed ee Soomaaliya isla markaasna ma arkaysaa hoggaan cusub loogu dooranayo lixda gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya waxa maanta studio Mandori TV dalka Switzerland marti inoogu ah aqoonyahan Cabdinaasir Mayow Miire oo loo yaqaan Cabdinaasir Dooli isla markaasna ah gudoomiyaha jaaliyada reer koonfur galbeed ee Soomaaliya magaalada Zurich Cabdinaasir marka ugu horeysa ku soo dhawow tele Mandori TV Cabdinaasir oo maanta waxaanu ka wareysanaynaa qodobo quseeya ama barnaamij quseeya doorashada ka socota xarunta ADC ee xarunta koonfur galbeed Soomaaliya baydhabo Masar Cabdinaasir sideed u aragtaa horta marka ugu horeysa doorashada ka socota xarunta ADC ee lagu dooranayo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ee ku xigeenadiisa arrin aad iyo aad u wanaagsan ayay ila muuqataa aniga nasiib wanaag waa wax aan sugeynay muddo hore oo aan inta lagu soo koobi karin muddadaas oo ah sida aan ka warqabno inkastoo mar waliba fadqalalo lagu abuurayo dadka reer koonfur galbeed ee Soomaaliya sida aan ognahay maamul goboleedkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee la dhisay wuxuu ahaa gay Soomaaliyeed cara Soomaaliyeed lagaga dhawaaqo koonfur galbeed Soomaaliya waxa Cabdinaasir haddaan ka dhex galo ka hor intaanan su'aasha aan u socdaan ku weydiin waxaad leedahay maamul goboleedkii ugu horeeyay ee cariga Soomaaliya laga askuma wuxuu ahaa koonfur galbeed Soomaaliya koonfur galbeed Soomaaliya waxa waa gartay Cabdinaasir waxa guli kugu sii safeyn karaa taas oo cadeynba ah markii maamul goboleedkaasi goladii dhexe ee guurtidii oqaashi markay isku yimaadeen dhammaan wixii baarlamankii iyo wixii oo dhan la dhisay codeyntii madaxweynihii lagu doortay maalinkii madaxweynaha la doortay maalmo ku dhow waa tii dawladii ay Salbalaar ay weerar ku soo qaaday ay qabsatay geyga dalka koonfur galbeed mudane Cabdinaasir ma waxaad leedahay maamulkii koonfur galbeed ee Soomaaliya ee ugu horeeyna ahaa maamulkii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya laga aasaaso macnaheedu dawladda Salbalaar ayaa burburisay baad leedahay laakiin Salbalaar 4 sano kadib sida aan qiyaasay taariikhdu waa laga soo saaray koonfur galbeed Soomaaliya inta badan qaasatan gobolada Baay Bakool iyo qaybo ka tirsan gobolka Gado iyo xataa Shabeellada Hoose marka maxaa u diiday 9